saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika ayaa ka tacsiyeeyay geeridii naxdinta lahayd ee ku timid marxuum Axmed Xasan Cawke oo ka tirsanaa wariyaasha ruwacdaaga Soomaaliyeed kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika ayaa waxa ay kaga tacsiyeeyeen geeridii ku timid Allaha u naxariistay wariye Axmed Xasan Cawke waxa ayna Allah uga baryeen in jannadiisa firdawsa uu ka waraabiyo ayagoona sidoo kale Allah uga baryay inuu samiriyo iimaan ka siiyo eheladii qaraabadii iyo caruurtii uu sida qaaska uga baxay marxuumkaasi agaasimaha TV-ga Universal ee dalkani Koonfur Afrika Mustafa Xasan Cali oo kamid ahaa wariyaashii ka hadlay kulanka ayaa sheegay in Axmed Xasan Cawke uu baaldahab ka galay taariikhda ummadda Soomaaliyeed isagoona kaga tacsiyeeyay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun anigoo ah agaasimaha telefishinka Universal ee Koonfur Afrika magaciguna yahay Mustafa Xasan waxaan aad iyo aad uga xumahay geerida naxdinta leh ee ku timid saaxiibkeena qaaliga ahaay marxuum Axmed Xasan Cawke waxaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyadeynaynaa geeridaasi oo ah mid aad iyo aad u naxdin badan Axmed Xasan Cawke waxa uu baal dahab ka galay taariikhda ummadda Soomaaliyeed waxaana ummadda Soomaaliyeed leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo garaan bahda saxaafadda Soomaaliyeed oo uu ka tagay anigoo ah wariye Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Al-Ruuxi kana mid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika waxaan tacsi tiiraanyada u dirayaa ahladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo dhammaan bahweynta saxaafadda Soomaaliyeed uu ka baxay marxuumka wariye Axmed Xasan Cawke oo ah wariye caan ah si weyn looga yaqaan dhammaan dhulalka Soomaalidu degto ee looga hadlo afka Soomaaliga ah kullu nafsin daa'iqatul maut waxaan halkan tacsi tiiraanyada uga diraynaa hadaynu nahay bahda saxaafadda ee ku nool waddanka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Cape Town saxafigii rugcadaaga ahaa ee geeriyooday rabbi naxariista jannaha ka waraabiye Axmed Xasan Cawke waxaan tacsi tiiraanyada si gaar ah ugu dirayaa saxafiga yar Sakariye Axmed Xasan Cawke oo kamid ah bahda Somali Cable TV waxaan leeyahay Sakariye sabir iimaan ilaahay naga siiyo aabe anigoo ah Abdullaahi Ibrahim Dasar kana tirsan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ee ka howlgasha waddanka Koonfur Afrika waxaan halkan tacsi tiiraanyada uga dirayaa walaalkeen saaxiibkeen Axmed Xasan Cawke oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Jigjiga waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyska oo ka baxay iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed Allah u naxariistay wariye Axmed Xasan Cawke ayaa aroornimadii talaadadii aynu ka soo gudubnay ku geeriyooday magaalada Jigjiga oo ah xarunta dawlad deegaanka Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Xasan Kaafi Maxamed Shire telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town